Muuqaalkan waxaa diiradda ku saari doonaa oo aan rabnaa inaan ku fahanno waa qaybta labaad qormo saynis. Qormo saynis marka waxaa dhahnay waxaa loo adeegsadaa oo loo isticmaalaa si tirooyinka aadka waaweyn iyo tirooyinka aadka u yaryar si loo qoro. Waxaa la isticmaalaa qaabkan oo loo yaqaano qormo saynis marka. Hadda maanta marka qaybta labaad waa qaybta hore soo barnay. Waxaa rabnaa markii tirooyinka oo la isticmaalayo oo haddii lagu sii tirooyin marka oo tirooyinkaas aad rabto inaad qorto qaab qormo saynis ahaan, waxaan isticmaalayna sharciga ahay m oo lagu dhuftay 10 oo ku jibaaran n marka. Booska m marka waxaan noo taagnay tirooyinka u dhexeeya biskiliya 1 ilaa 9. Booska m waxaa gali kala biskiliya tirada waa inay ahaataa 1 mise 2 ilaa 9 marka. 9 wixii ka weyn 10 ma rabno, 1 wixii ka yar eberna ma rabno. Waxaan rabnaa keliya inaan helno tiro 1 ah, 2 3 4 5 6 7 8 9 bis. 9 wixii ka weyn 10 ma rabno, 1 wixii ka yar eberna booska m ma gali doono marka. Booska n waxaa noo galaya tiro kasta marka. Tiradaas marka tiro weyn mise tiro yar, tiradaas ida xaddi ma laha. Laakiin tiradaas waxaan u fiirinaynay haddii dhanka midig aan kasoo tirino boontiga oo dhanka bidix aan soo aadno, tiradaas waxaa siin doonaa plus y. Haddii dhanka bidixna aan ka imaano dhanka midig aan soo aadno, kadibna iyadana waxaa siin doonaa tiradaas minus y. hadda marka kuwaan aan fiirina hadda waxaa rabnaa marka in tirooyinkan inoo qoran oo 6dan su-aal in waxaa rabnaa aan ka shaqeyno aan u bedelno qormo saynis ahaan marka. lambar 1 marka waxaa inoo qoran waa eber dhibic eber soo wad ilaa maxaa waa 1 6 5 waay. Hay tirada rabnaa in waxaa rabnaa oo qorno qaab qormo saynis ahaan marka. Hay tirada marka boontiga intuu yaalaa boontiga marka haddii dhankan aan wadina dhankan oo bidix, dhankan bidix waxaa jira keliya eber oo keliya waay. laakiin dhankan midig maxaa jiro waa tirooyin marka waa dhankan aad jirtaa marka. haddii marba dhinacan eber jiraan anaga waxaa u baahan 1 ilaa 9 waay. dhinacan wixii jira eber maadaama ay yihiin waa iska dhaafi doonaa marka. kadib dhanka waxaa aadi doonaa ay jiraan tirooyinka marka. hadda marka aan bilaawno marka aan wadna marka hay 1 dhankan wad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. haddii boonti intaa hadda aan istaajino boonti dhankan waxaa ka jiro eber waay. waxaa u baahan anaga waxay ahayd bis keliya 1 mise 9 iyo wixii u dhexeeya bis eber anaga ma rabno. weli boontinkaas sii wad inta sii geey boontiga marka. hadda boonti dhinaca maxaa ka jira marka waa 1 dhibic waa marka 1 dhibic 6 5 waa qaadan karnaa marka. waxaa dhihi doonaa waxaa soo baxay waa 1 dhibic 6 5 oo lagu dhufanayo 10. 1 dhibic 6 5 oo lagu dhuftay 10. waxaa ku jibaari doonaa marka inta mar aasikan waxaa sikanay ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. waxaa hoose kan waxaa waay 11 jeer waay. waxaa ku jibaari doonaa 11 marka 10 ku jibaari doonaa 11. hay hadda marka maadaama dhanka bidix aan ka imaanay oo dhanka midig aan soo aadnay, tirada markaas maxaa siin doonaa minus waay. waa 1 dhibic 6 5 lagu dhuftay 10 ku jibaari maxaa waay minus 11 waay. hay si aan si faano kan labaad aan sameyno. kan labaad waxaa qoran waa eber dhibic eber 1 5 waay. midka hadda marka u fiirsan in waxaa rabnaa u qorno qaab qormo saynis ahaan ay boonti intuu yaalaa boonti dhankan wada doona dhankana maxaa jiraan tirooyin dhankan kale maxaa eber waa keliya dhankan wada boontiga ay waxaa dhihi doonaa boontiga marka waa soo dhaqaaji waa 1 2 3 markaas ogow boontiga waxaa geyn doonaa meel tiro ee taalo oo tiradaas marka u dhexeyso 1 ilaa 9 marka ay sii wad weli ay 4 weli dhinacan waxaa jira eber waa keliya inta dhigana boontiga marka waa 1 dhibic 5 marka. waxaan soo baxaa waay waa 1 dhibic 5 oo lagu dhufanayo 10 marka. maxay 1 dhibic 5 booska m ay galeen 1 marka 1 marka wuu jiraa marka 1 waa qaadan karnaa. anaga waxaa diirnan keliya anaga hadda waxaa rabin waxay tahay eber iyo 9 wixii ka weyn bis 1 dhibic 5 ay lagu dhuftay 10 waaye. inta mar aasikan waxaa sikan marka anaga boonti aan soo dhaqaajinay waa 1 jeer 2 3 4 5 jeer waay. waxaa ku jibaari doonaa 5 maadaama dhankan aan ka imaano bidix dhanka midig aan soo aadnay waxaa siin doonaa marka minus siin doonaa. daba marka ka saddexaadna aan sameyno marka waxaa qoran waa eber dhibic 4 5 waay. hay kan asan waxaa rabnaa inaan u qorno qaab qormo saynis ahaan inaan u qornaa rabnaa. hay boontiga intuu yaalaa boontiga dhankan haddii loo wado dhankan maxaa bidix eber keliya waay. dhankan aan wadnay haddii hal jeer boontiga sikano intaa geeno muxuu noqonaa waa 4 dhibic 5 waa 4 dhibic 5 waa marka. kacam hadda maxaa waa qaadan karnaa maxaa yeelay boontiga
waxaa dhinacan ka jira hadda afar oo keliya wax dhihi doona marka waxaa waaye waa 4.5 oo lagu dhufanayo 10. meeqa jeer boonti sekeni boonti waxaa sekeni keliya hal jeer oo keliya waxaa ku jibaari doonaa marka waa hal dhanka bidixan ka imaan dhanka midigaa soo aadnay waxaa siin doonaa marka waxaa minus 4.5 lagu dhuftay 10 ku jibaara minus 1 ogow marka eberada waa ka tegi doonaa tan koowaad fiir labaad saddexaad fiir eberada marba dhinaca maraan eberada wax tira aan ka dameynin eberadaas maxaa waa iska dhaafi doonaa haddaba marka midka afraad aan sameyno waxaa qoran eber hal qoran isna boonti intuu yaalaa boontinkas dhaqaaji ilaa ka geyn waxaa tiro markaas u dhexeysa 1 ilaa 9 mise 1 ama 9 ayaawadna waa 1 2 3 4 marka haddii inta astaajileen maana macquul maadi inta feeriya inta sajileen fiir salaanta ku soo celino haddii aan ku soo celino feeriya waa 1 2 3 waa hadda wili boonti in ka jiro kaliya eberowa anaga waxa baana boonti waxaan ka jiro waa inuu hada maxaa tiramkaas tiro hal ah mis 9 mis wixii u dhaxeeyo ay wili ismka soo inta geey marka maxaa noo imaaday marka waxaa noo imaaday waa 1.1 oo lagu dhufanayo 10 maxaa ku jibaari doonaa marka inta mar aasikan waxaa sikan hadda boonti waxaa soo sikani 1 2 3 4 waa 4 jeer ku jibaari doonaa 4 afarta marka waxaa siin doonaa minus maxaa yeelay inta mar aasikan hadda maxaa anaga dhanka midix dhanka wax ka imaanay bidix dhanka midiga soo aadnay waxaa siin doonaa marka maxaa marka minus siin doonaa haddii marka kuwan hore u fahnay haddii kuwan hadda qaaday afarta xaba fahnay qof walba isku day labada xaba shanaad samee eber dhibic hal shan samee eber dhibic eber 3 isku day idan inaad sameyso ama santay